أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نهج بنهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. walaalaha qiimaha iyo qaayaha badan meel kastoo caalamka ka joogtaan, salaan ayaan hawada idinka soo diraynaa. salaanta islaamka, dadka muslimiinta ay isku salaamaan salaanta ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay in kownkan la isku salaamo, adduunyadan la isku salaamo oo nabadgelyo ah. salaantaasaan idiin soo diraynaa. waa midda khaaska u ah qiyaamada iyo aakhiro marka la aado jannada, ahlu jannada marka ay jannada galaan, kuwa ay salaanta ay isku salaamaan ayaan idinku salaamaynaa walaalahay. baaraka allahu fiikum. waxaad aalaaba hameenka khamiista marka 7 fiidnimo ay tahay aad kala socotaan telefishankan caalamiga ah Somsat TV, xaruntiisa dhexe ay tahay magaalada Birmingham. aan idinka soo gudbinaa barnaamijka runtii qiimaha badan ee ku saabsan furaha qoyska la yidhaahdo, yacni ciwaankiisa uu yahay furaha qoyska, oo marka aan uga hadalna inta badan sidii bal guryaheena dhisan ay u waari lahaayeen, ay usii jiri lahaayeen, u wanaagsanaan lahaayeen, sidii aan u diyaarin lahayn, u wacyigelin lahayn guryaha soo dhismaya ee ilmihii aan soo dhalay ay iyaguna dhisi doonaan si tafiirta aadanaha ay usii jirta, ay usii socoto. walaalayaal, waxaan runtii xalqooyin hore oo horey baad u aragteen aan kaga hadalnay waxyaabo dhowr ah oo tiro badan oo xalaqaadkii hore ku jiray, cilaaqaadka iyo xidhiirhka kala duwan, xidhiirhka aada la leedahay adiga shakhsiyan qof ahaan markaad tahay rabbigii ku abuuray subxaana wa tacaala, xidhiirhka intaa kabacdi la xidhiidha ama ka dhexeeya adiga iyo ummadda aada la nooshahay, ay ugu horeeyaan labadii waalid ee adduunkan ku keenay, kabacdi dadkaad la dhalatay walaalaha iyo qaraabada, uma kabacdi intaana ay kuusii raacdo hadhowta markaad reer yeelato amaba aada yeelatay gabadha ama ninka aada wada nooshihiin ee aada iska doorateen dadka intooda kale, uma ciyaalka, uma meesha aada ku dhex nooshahay iyo dadka aada la nooshahay, xidhiidhada kala duwan sidii loo fiicnayn lahaa, loo wanaajin lahaa. waxaanu dib usoo ambaqaadnay marka inaanu tilmaanno waxyaabaha aanu ka hadli doonno. waxaan si mujmala ama si yacna guud aan usoo marnay, oonu soo sheegnay tacriifka ama turxaan bixinta qoys maxaa la yidhaahdaa, ama guri maxaa la yidhaahdaa, family. waxaan soo sheegnay aabbo iyo hooyo iyo ilmo meesha jooga in uu qoyskaa yahay. waxaan maalinkii hore aan ballan qaadnay walaalayaal oo aada ogeydeen inaan nidhi waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala xalaqada soo socota ama kulanka dambe ee barnaamijka sida la isku doorto. caawa marka waxaan u fadhinaa inaan bal sidii moodadayada ah noola muuqata anagu taariikhda markaad akhrido, dhaqamada markaad eegto, diinta kitaabka rabbi noo soo dejiyaan haysaneen muslimiintaan ku nahay, markaan dib ugu noqono nabigeena sala allahu alayh wasalam, sunnadii nebiga, dardaarankiisii ilaahay muxuu ina faray subxaana wa tacaala, ayaan rabnaa inaan wax iskaga sheegno biidni illahi alkariim muddo yaroo aada u kooban. waxaan aada uga codsanaynaa shacabka, rag iyo dumarba, yar iyo weynba, inay nala socdaan oo aad nagala qeyb qaadataan insha allahu tacaala. aragtidiina idinkana sida ay tahay eed u aragtaan mowduucan caawa xalaqadu ay tahay, oo ah marka xulashada iyo doorashada labada qofi ay isdooranayaan si ay u dhisaan guri, ay u dhisaan. ujeeddadu maxay tahay marka gurigaasi la dhisayo, baahidiisu maxay tahay, iyaa u baahan, arrimahaasaan isla qaadaa dhigi doonaa haddii alla yidhaahdo caawa. waxaa caawa marti ii ah
sheekh cali cabduqaadir sheekh cali cabduqaadir ciise oo magaalada birmingham nala degan oo ka mid ah culummada magaalada soomaaliyeed ee degan magaalada birmingham. sheekh cali wuxuu runtii aada uga howlan yahay horumarinta bulshada, gaar ahaan intaynan ku nool qurbaha ku nool. waxaa ka mid a activitiyadiisa inuu sida oo kale ka qeyb qaato researchiyo qaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo tacliinta oo ku aadan dalkii soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa. sheekhu waa aabe 4 caruura leh. gabadhiisii curad waxay hadda ka qalajabisay jaamacadda Aston ayay ka qalajabisay ayada oo English teachingka diyaarisay. sida oo kale sheekhu wuxuu mas-uul ka yahay hay-ad, dabcan wuxuu ka shaqeeyaa hay-aadka muslimiinta taageera dadka in wax loo taro iyada oo marka ay ku salaysan tahay axaadiistii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo xikmadda qof dadka bini aadanka ah. maxaa yeelay soomaalidu waxay tidhaahdaa yacna war ha kaa hadho waari maysidi. macnaheedu waxa weeyaan legacy iska reeb, ummadda wax u tar. nebiguna sal allahu alay wasalam wuxuu ku tilmaamay dadka ugu khayrka badan leh, wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, yacna dadka waxa ugu khayr badan qofka wax u tara. khayrukum anfacukum linnaas, waxaa idinku khayr badan qofkiina dadka anfaca in sha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa walaa nuzaki cala allahi axad, sheekh cali cabduqaadir inuu ka mid yahay dadka ummadda wax u tara ee u gargaara. sheekh cali, kusoo dhawow madasha caawa barnaamijka furaha qoyska oo aan aada u jecel lahay inaan kaa wareysano adoo aabba ah, adoo macalin ah. dabcan walaalaha waxaan la wadaagayaa in uu sheekhu macalin yahay, uu iskoolada dowladda oo wax ka dhigo. marka runtii kusoo dhawow sheekh, baaraka allahu fiik. baaraka allahu fiik, jazaaka allah khayr sheekh cali. walaalayaal, waxaan soo tilmaanay in aan bal sheegi doonno caawa doorashada labada qof ay isdooranayaan. waxaan isyaro dul taagi doonaa in sha allah caawa 2 xadiis. nabiga sala allahu alayh wasalam xadiis uu dhalinyarada kula hadlayo in la guursado, wuxuu leeyahay yaa macshar ashabaab man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj. xadiiskaasi wuxuu ku wajahan yahay sida aad arkaysiinba dadka dhalinta ah inay guursadaan raba ayuu nebigu sala allahu alay wasalam kula dardaarmayaa inay guursadaan, ay guri dhisaan. xadiis kale ayaan isagana qaadan doonaa in sha allahu tacaala oo isagana aan rabno in aan ka gallo, oo nebiguna kula hadlaya sal alla alay wasalam ahalka iyo qaraabada iyo dadka mas-uulka ka ah, gaar ahaan ay uga horeeyaan waalidku. oo nebigu leeyahy sal alla alay wasalam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah, hadduu idin yimaado mid aad raalli ka tihiin diintiisa iyo dabiciisa, akhlaaqdiisa, dhaqankiisa, fazawijuuhu, uu idinka soo doono yani gabadhiina u guuriya. wa ilaa maxaa dhici? fasaad iyo burbur ayaa dhici, bulshaduna way baabi'i. sheekh cali, madmuunka ama mafhuumka kolley 2 xadiis ayaan tilmaannay. waxaan aada u rajeynaya insha allahu tacaala ugu dambeyntii doorashada labada qof markay isdooranayaan, waxaan rabnaa inaan ka galno 3 qaybood: jaanibka dhaqanka iyo diinta iyo environmentkan aan ku dhex noolnahay hadda, ka duwan environmentkii aan ka imanay ahaa bii'adii soomaaliyeed, ama inta badan aan oon karo bii'o muslim ah ayay ahayd. marka sheekh cali, doorashada marka hore ama xulashada guur, qofku marka uu wiilka ama gabadha markay soo gaadhaan da-dii la guursanayo, sidee wax dooran karaan? maxaase doorasho horta la yidhahdaa? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله. والحان أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى أولا مركا ugu horeyso iyo marka ugu dambeysaba
waxaan kaloo runtii aan halkaan ila fadhiya umad celinaya walaalkay Axmed Sheekh Axmed Jawhar iyo waxaan runtii aad maaragtay sidoo kale ugu mahad celinaya walaalaha ama bahda Somsat oo runtii nasiib fursadan in aan la hadalno walaalaheena Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo aan la wadaagno arintan muhiimka ah. barnaamijka xaqiiqa walaal Axmed uu nagu casumay oo ah furaha qoyska, waxaan isleeyahay qoyska wuxuu u yahay asagana furo u siiyahay mujtamaca wanaagsan. marka runtii qoyska iyo guriga haddii ay dhismaan waxaa markaa hagaagaya mujtamacii. marka qoyskan wuxuu ka bilowdaa afraad ama dad ashkhaas buu ka bilowdaa. marka ashkhaastaas ayaa marka hore haddii ay yihiin dad wanaagsan oo saalixiina ama kasoo jeedo qoys wanaagsan, ayagana sidoo kale ayaa waxaa la rajeynayaa ayagana in ay dhisaan qoys kale oo wanaagsan. marka waxaa awalan arrinka laga hadlaya caawa u fadhino waxaa weeye doorashada, ama aan idhaahdee marka hore xulashada kadib doorashada. maxaa yeelay marka hore waxaa u baahan tahay inaad wax iska xulatid haddii aad tahay gabar ama aad tahay wiil, markaana aad kadib dooratid. marka waxa laga hadlayna waxaa weeye guurka. marka waxaan ka eegeynaa sida walaal Axmed uu tilmaamay 3 qaybood ama 3 jihaan kasoo eegeynaa. jiha waxaa weeye dhaqanka Soomaalida oo runtii ah mid dheer oo soo jiray. Soomaalida dhaqan ay u lahayd inay isguursadaan, habna isku guursadaan. inkasta oo la oran karo dadka af Soomaaliga ku hadlay oo ku baahsan geeska Afrika jamhuuriyaddan ay kamid tahay in uu jiri karo kala duwanaansho xoogaa ah habka wax loo doono ama habka la isku guursado. laakiin waxaan isleeyahay waxaa jira waxyaalo laga siman yahay oo ama aasaas ah. dhaqankaas waan eegi doonaa. waxaan kaloo ka eegeynaa maadaama anaga dhaqankii anagoo haysan islaamkii uu noo yimid, wuxuu noo keenay dhaqan kale oo wanaagsan oo kabaay dhaqankeenii hore. marka islaamkana maadaama aan qaadanay waxa uu ku saleysan yahay shareecada Ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka wixii dhaqankeenna ka waafaqay shareecada waa ma arkaysaa falilaahi alxamd. wixii aan ka waafaqin waxay noqonaysaa marka in laga qaato shareecadii. waxaa kale dabcan oo nagu soo kordhay oo hadda sidaa tilmaantay qayb saddexaad ayadan la oran karaa, markii lasoo qaxay ama dadkii ay kusoo bateen wadamadan galbeedka in loo yimid ama lagu dhex nool yahay dad naga dhaqan duwan iyo bay-a naga duwan. marka sidaasoo kale waxaa iyadan fiican inaan eegno muxuu ku dhisan yahay ama u ah aasaas halkan dadka qurbaha jooga guurka la isguursado, waalidiinta maaragtay waxa doorka ay ku leeyihiin ama dhalinyarada guurka gaartay sida ay u arkaan marka la isguursanayo ujeedooyinka la isku guursado. marka waxaan isleeyahay hadalkeena caawa haddii Ilaahay raa sidaan u fahmay wuxuu ku socdaa waalidiinta iyo dhalinyarada guurka diyaarka u ama gaaray haddii Ilaahay raa. ujeedada la isku guursado ka dhaqan ahaan dabcan waxaa weeye in awalan la ilaaliyo qofka, inuu ilaaliyo nasabkiisa iyo meesha ku abtirsan lahaa. marka waa inuu guur xalaala maraa, waa in uu badiyo ama ilaaliyo tarankii jinsigii bini aadamka ahaa. tan kale waxaa weeye inuu dhowrsanaado. marka guurka ujeedooyinkiisa waxaa weeye qofku inuu dhowrsanaado, inuu taranka badiyo oo adduunkan maaragtay isdhexalkii, iyo in uu ma arkaysaa nasabkiisii uu sax noqdo oo xalaal markaa uu ku guursado. oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo jideeyey. marka dhaqan ahaana waa u leenahay alxamdulilah. haddaan marka dhaqan kusii socdo wax yar aan ka idhaahdo, Soomaalida guurka ama xulashada habka la isku xosho ama markaa loo doorto waa waxyaalo badan laga tilmaamaa. marka waxyaalihii aan soo arkay runtii aan soo akhriyay aan soo yara baaray waxaa ka mid ahaa awalan dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa wuxuu ahaa dhowr ayaa waxaa ka mid ahaa in lasoo doono gabadha oo markaa loo fariisto oo markaa guur xaraga leh oo markaa in lasoo doono oo markaa la bixiyo gabadhii. يعني حرقة له قرح qurux badan muunad leh. ما شاء الله. waxaa kaloo ka mid ahaa oo jiri jirta ayadana in la isla baxo
oo markii gabadhii wiilka markay is wada haasaawaan ama is shukaansadaan sheekaystaan ama sheekaystaanba in markaa sababo darteed oo markaa cabsi jirto guriga maaragtay qoyska in waxyaalaha qaar inay keenaan dhici karto inay isla baxaan hadhowna markii arrintii lagu dhameeyo musaalaxo iyo in markaa waan la geliyo la heshiiyo. waxaa kaloo guurka uu ku imaan karaa marka heshiiska waxaa heshiinaya familigii labadii qoys baa heshiinaya. khayr allah ku siiyo. guurka wuxuu kaloo wuxuu ku imaan karaa sida caadiga ah in qofkii asagoo xaas leh in laga yaabo xaaska inay ka dhimato. marka waxaa jira dhaqan ah in haddii ay jirto gabadhaas dhimatay walaasheed oo ka yar in reerka ay siiyaan ninkii laga dhintay ama gabadhii ay ka dhimatay gabar kale in ay siiyaan. markaana af soomaaliga maaragtay waxaa lagu yidhaahdaa xigsiisin ama xigsiin oo macnaheedu ay tahay yani in caruurtii xanaano loo raadinayo qof xanaaneya. waxaa kale oo jirta ayada iyo xididkii laftigiisa inuu xididkii sii socdo xiriirkii macnihii inuu sii socdo waa sax. waxaa kaloo jira sida guud ee la maqlo waxaa jira dumaal oo markaa dhinaca kale ninkii haddii uu dhinto in markaa haddii uu jiro nin kale oo la dhashay ama wiil uu jiro inuu dumaalo gabadhii ayadana waxaa loogu talagelay wax la yiraahdo daryeelka ubadka. markii hore wuxuu ahaa xanaaneynta ubadka hooyaa loo baahday markaana waxaa loo baahday aabe oo daryeel baa loo baahday. marka waa wax wanaagsana muddaa inkastoo laga yaabo dadka qaar inay ka doodi karaan. weli waa u socdaa hadda yacnaa marka aad fiiriso dhulkeennii markaad fiiriso waxaa suurtagal ah in arrintaasi ay sii jirto oo lasii sameeyo. laakiin markaad soo qaado dhulkan aad timaado galbeedka iyo maaragtay yurub iyo maraykan arrimahaas xoogaa waxaad moodaa in aynan sii jirin inta badan ama aan la maqal. waa wax jira ha macni markii ummad ama mujtamac uu ku dhaco burbur ama ay meel kale u wareegaan ama ay qaxaan oo ay nolol cusub ka bilaabaan dhul kale runtii waxyaalo badan oo isbedelayaan. marka waa wax dhici kara arrintaas sheegayso. waxaa kaloo ka mid ah guurka noocyada guurka ah inkastoo ay fara badan yihiin. waxaa kaloo ka mid ah wax la yidhaahdo godob reeb oo inta badan ma dhacdo laakiin markii dagaal uu dhaco oo la heshiiyo si loo ilaaliyo inaan mar kale u dhicin dagaalkii in la isweydaarsado ama ciddii wax laga galay loo guuriyo oo dhinacan kale ay gabdho bixiyaan ama gabar bixiyaan ama gabdhaba oo markaa ay noqoto in maaragtay xidid la noqdo oo heshiiskii uu sii wanaagsanaado. waxaa kaloo jiro si una dagaalkii usoo noqon yani si uusan dagaalka mar kale usoo waa xal ijtimaaciya oo waa xalal ijtimaaciya waa xuluul maaragtay maasha allah way badan yihiin. waxaa kaloo jira wax la yiraahdo gabdhaha inay foof tagaan ama markaa heerin la yiraahdo markaa inay baxaan iyo guri galaan ama reer ay la degaan. waxaa kaloo jiro si shakhsiyan maaragtay gabadha inay guri gasho ama guri gelid la yiraahdo oo markaa ay doonto oo markaa la siiyo wiil saasoo kale. waxaa laga yaabaa dhaqamo badan oo kale inay sii jiraan laakiin intaasaan ma dhici kartaa reerka gabadha haddii ay soo diidaan oo gabadhaa la diido inay meesha mushkila ka dhalato? inta badan marka la xeerinayo dhaqanka la ilaalinayo waxaa la yiraahdaa macnihi ma dhacdo in la diido laakiin haddii ay dhacdo in la diido marka waxay noqonaysaa in xaal la bixiyo mag la bixiyo saasoo kale ama mag wax lagu tilmaamoba. waa sax wey jazaak allah khayr baarak allah fiikum. waxaan kusii soconaynaa dabcan barnaamijkeenii walaalaha inta gadaal naga soo gaadhay waxaan xasuusinaynaa in aan ku jirnay barnaamijkii furaha qoyska oo aan caawa uga hadlaynay qaabka la isku doorto ama la isku xisho wiilkii iyo gabadha sida ay isku guursanayaan dhaqan ahaan iyo diin ahaan gaar ahaan dhulkan galbeedka in la joogo sida ay wax u dhacaan. sheekh cali waxaad noo soo sheegtay runtii qaabkii ama jaanibkii dhaqanka ayaad ka gashay. diin ahaan markaad fiiriso waxaan tilmaanay xadiisu nebigu la dardaarmayey sal alla alay wasalam dhalinyarada. xadiiska muxtawihiisu muxuu sheegayaa marka uu dhalinyarada nebigu la dardaarmayo uu guursada leeyahay? dabcan dhaqanka waxaan u horumariyay xaqiiqa dad muslimiin aan nahay waa sax laakiin dhaqanka waxaan u horumariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeynaya sababta loo soo diray waxa uu tilmaamay in uu dhammaystirayo akhlaaqdii jirtay. marka islaamka wuuna soo gaaray marka
alxamdulilah waan qaadanay islaamkii. marka guurkii islaamka muxuu ka leeyahay? awalan sidaa sheegtay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku boorinaya dhalinyarada qofkii awooda inuu guursado. awooddaas marka waxaa lagu tilmaamaa inay tahay inuu kari karo inuu masaariifta iska bixiyo, ama uu u leeyahay awood inuu la aqalgeli karo gabadhii, uu la seexan karo. waxaa marka laga qaadanaya runtii awalan inay tahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam, ilaahayna u jideeyey inay adduunkan ama kownkan sunankiisa inuu yahay in la tarmo oo si xalaal la isku guursado. dabcan guurka jaahiliga waqtiga carabta waxaa jiri jiray guur badan oo habab kala duwan oo la isku guursado. marka kaas uma gelina hadda, oo marka islaamka wuxuu kasoo reebay mid keliya oo ah gabadhii in meher laga bixiyo oo la doonto. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo noo sheegay sidaa xustay xadiidka nabiga calayhi salaam uu noo sheegayo, uu leeyahay wiilka sifada uu ku tilmaamayo, macnihii idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuuhu. nabiga calayhi salaam xadiidka wuxuu ku leeyahay hadduu idin yimaado wiil ama qof aad ka raali tihiin dhaqanka diintiisa oo ah islaamka fahamkiisa iyo akhlaaqdiisa oo ah aadaabtiisa iyo dhaqanka islaamka suu ugu dhaqmo, aan yidhaahday akhlaaqda, u guuriya. marka sifaad ayaa la sheegay. sidaas si lamid ah sheekh axmed, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay gabadhana wuxuu ku sheegay sifaad ama tilmaamo. nabiga sal xadiidku wuxuu ku leeyahay tunkaxu lmar'atu liarbacin, macnihi gabadha waxaa loo guursadaa 4 sababood. tan ugu horeysa waxaa weeye limaaliha, inay gabadha maal leedahay oo qofka uu doono maalkaas inuu ku guursado. waxaa kaloo kamid ah lixasabihaa, gabadha inay kasoo jeedo cid sharaf iyo karaamo leh oo abka ab iska soo dhaxlay wanaag, oo markaa qofka uu raadinayo sharaftaas. tan saddexaad waxaa weeye lijamaaliha, qurux inuu gabadha ku eegto, oo gabadh qurux badan oo dheer oo saas oo kale ah oo cajabisa inuu uraadsado. iyo tan ugu dambeysa oo ah inuu ku raadsado ama ku doorto diinteeda. marka waxyaalahaas nabiga calay slam wuxuu ka waday qofka bini aadamka ah ama aragtida qofka bini aadamka ah oo waxyaalaha kusoo dhacaya xaqiiqa. yani gabadha in la eego maal hadday leedahay ama maaragtay sharafka iyo qoyska uu leeyahay, nasabkeeda iyo quruxdeeda iyo sidaas oo kale diinteeda. laakiin nabiga calay slam xadiidka wuxuu ku leeyahay dooro midda diinta u saaxiibka ah. inkastoo ay culimada markay sii wadaan ay soo gelinayaan waxa la yidhaahdo ikhtiyaar calaa asaasi alasl wa sharaf, macnihi waxa weye in lagu eego gabadha sidaas oo kale, macnihii asal gabadhan mani xagee kasoo jeedaa. waxaa laga yaabaa in loo fahmo qabiilka, laakiin qabiil lagama wado, waxaa laga wadaa gabadhan abka abma waxay kasoo jeedaa qoys iyo dad maaragtay wanaagsan oo lagu yaqaan salaax iyo maaragtay hagaagsanaan. sababtana maxay tahay axmed? hadda waxaan iri guurka waa xulasho iyo doorasho. marka macnihii waxaa hadda la fahmayaa kolley markii qofka uu ku jiro internet, markuu ku jiro mararka qaarkood waxaa u baahanaysaa inaad wax baartid. marka inta badan waxaa la yidhahdo search engine-ka waxaa la isticmaalaa google-ka haddaan khaldanayn. marka google-ka waxaa ku qoreysaa waxa u baahnayd. marka waxaa ku jirtaa raadin ama baaris. marka wixii waxaa kusoo baxaya waxyaalo badan, boqolaal shay baa kusoo baxayso. marka waxaa sameynaysaa wax la yidhaahdo markaas ikhtiyaar, waa dooranaysaa. marka lama jeedi waa selection aad dooranaysaa, waa search and select, waa doon xul. marka dooro. sheekh cali aan kaa dhex gale, inaad inta xulatid aad doorato macee baa ku jirta? marka hore xoogaa waxaad yara moodaa in yacna search and select ingiriis ahaan marka loo fiiriyo connotation negative aad moodaa inaad kala soo yaro baxaysid ood ka leexanaysid. laakiin qofku sidiisaba marka uu wax raadinayo 1000 gabdhood oo ay dhici karta inay 1000 kuba kuu qurux badan yihiin ayaa kaa hor iman karta. gabadhana sida oo kale 1000 wiil oo qurux badan inay yani ka hor yimaadaan baa dhici karta. marka soo kama dhex dooran karto 1000 wiil ee wada quruxda badan mid soo kama soo dhici karta oo selectionkii ayaan hebel baan ka xushay. waxaa laga yaabaa xoogaa sidaa u yar dhigtay in terminology-ga laga yaabo in maya macnihii maadaama ay tahay arrin ijtimaaci, arrin bulsho maadaama ay tahay,
waa way adag tahay oo saas uma aha wax iska fudud oo saas la isaga arkaayo. marka si aan u sharxo xoogaa waxaa loo baahan yahay marka laga hadlaayo xulashada iyo doorashada waxaa loo baahan yahay usluub la maro ama wado la maro iyo akhlaaqiyaad la ilaaliyo. qofka dumarka iyo ninka wiilkaba waxay xor u yihiin sida nabiga alay slam uu u siiyey dhinaca wiilka maadaama uu siiyey hadduu idin yimaadaasoo kale qofkaas saas aad akhlaaqdiisa diintiisa raadi ka tihiin u guuriya. sidaas si lamida gabadhana markii loo guurinaayo waxaa sunnada ay tahay nabiga calayhi salatu wasalaam noo sheegay in la weydiinayo ayada rabitaankeeda saasoo kale oo markaa la qadarinayo. marka horta taas sawirkaas waa sidaas macnaheedu markaa in aan la qasbi karin gabadhii yani qof aynan rabin aan lagu qasbi karin. iga raali noqoshe cali, waxaan u rabaa inaan kugu yaro celiyo su-aal ah xadiiskan ida jaakum ama ida ataakum man tardawna diinahu wa khuluqa. inta badan waxaad moodaa inagu in aan diin kaliya eegin, yani markaad fiiriso guurka inta badan in la yidhaaho qofka muslim ma yahay, maalan muslim ma yahay haddii ay gabadhu maalan wiil la timaado amaba wiil uu gabadha usoo doono, diintu marka ma islaamnimo un baa keliya? labo, maxaa khuluqa iyo diintii yani diinakum diinahu wa khuluqahu baa lihi dabicii maxaa meeshaan loogu soo daray iyo dhaqankii? hadduu ku yimaado nin diintiisu fiican tahay, salaada tukada maalan, sadaqada bixiye, bisha ramadaan sooma, sida sawirka yani tasawurkan sheegaya diin marka la fiirinayo, laakiin dabac xun, af xun, gacan adag, dhaqankiisu uu fiicnayn, gabadhii ma la siinaya ma loo guurinaya? maalan dagaalama, gacantu ka soo horeyso. طبعا nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa waa dabcan waxaa weeye wuxuu noo tilmaamayaa laba sifo oo waaweyn runtii. labada sifona waxay koobayaan arrimo ballaaran. marka ugu horeyso aasaaska diinta macnaheeda waxaa weeye oo walaalahan runtii aan la wadaagi lahaa soomaalida iyo cid ay dhegeysanayso ama ay arkayso. aasaaska diinta marka la leeyahay waxaa loola jeedaa alfahm alxaqiiqi lilislaam. awalan waa fahamka qofka inuu islaamka fahamsan yahay, wa tatbiiq alcamali asuluuki, uu qofka markaasna uu hirgelinayo camalka ku saabsan akhlaaqda maarkaysa shaksiga ah ee qofka uu nabiga sal ku tilmaamay khuluqa. marka maxaa loo jeedaa khuluqa? waxaa laga yaabaa af soomaaliga markay hado qofkan akhlaaq ma leh in loola jeedo aadaab male oo kale, macnihii saas oo kale. laakiin carabi ahaan khuluqa waxaa weeye arrimihii aad tirisay. khuluqa waxaa loola jeedaa geesinimada, runta, sakhinimada qofka inuu wax bixiyo, naxariistii, dulqaadkii, xilmigii, inuu yahay ma arkaysaa qof martisooro dadka oo karam leh, akhlaaqiyaadka midaas waay. marka haddii labadaas mid kamida qofka uu khaali ka yahay oo islaamkii diinta fahamkii iyo akhlaaqdii uu ka aradan yahay, khaasatan tan dambe ayaa aada u carabaabtay sheekh axmed, lama siinayo. yani lama siinayo markaan leeyahay macnaheeda waxaa weeye guriga gabadhaada ama qofkaas waalidka gabadhaas maaragtay guriga ay gelayso waxa uu ku dhisan yahay mucaamala wax la yidhaahdo oo suluukiyaadka, behaviorki, attitudekii qofka ama maaragtay dhaqankii. marka gurigana waa dhaqan, qofkana waxaa weeye xusn almucaamala, qofka siduu u dhaqmaayo. jazaak allah khair. markaysaa sheekh cali aad baad umahadsan tahay. walaalaha waxaan runtii aad ugu dhiirigelin lahaa in ay kasoo qeyb qaataan insha allahu tacaala. waxaad dareemaysaan kala saarka la kala saaray in ay ujeedda ka dambeyso oo ah qofka diin ahaan inta badan maanta waxa inagu badan, ama marka la fiiriyo qofka inaan dhaqankiisii loo dhaadhicin oo khuluqiisii la eegin oo maxaan ku idhahday sida uu u dhaqmo iyo waxa uu aaminsan yahay aan intaba la raadin, laakiin lagu ekaado uun keliya qofkani muslim ma yahay. mararka qaarkood ay dhici karta in la yidhaha soomaali ma yahay un bes keliya, laakiin aanan la fiirin mayana aan lagu rabaynin marka horeba labadaba wiilka iyo gabadhaba in ay diinna yeeshaan, khuluq iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaagna ay yeeshaan. saasoo kale sheekhaan ku celinayaa insha allahu tacaala. waxaan rabay inaan wax yar ku laabto Fadal. arrinta khuluqa. Fadal sheekh. hadday arrimihii ay xusis waxaa kamid ahaa
oo markii dambena aan ku daray yani qofka inuu deeqsi yahay qof sakhi ah nacam adna waxaa xustay inuu qofka hadduu yahay qof gacan adag baa tiri Mhm. waxaa dhacday runtii xasan bin cali inuu ahaan filay radi allahu canhu in la weydiiyey oo nin yimid uu yidhi macnihii gabadhayda sifooyinka ninka aan siinaa ii sheeg sifooyinka waxaa ku jiray wuxuu yihi waa inuu yahay qof macnihii generous ah macnihi qof deeqsi ah deeqsi ah ma sha allah marka wuxuu yidhi ha siinin gabadhaada qof bakhiil ah sababtan uu u sheegay macnihii runtii aan u faafinayna waxaa weye qofka bakhiilka ah ee lacagta ama camalka waxa khayrka bakhiilka ku ah nacam dee gabadhana wax walba bakhiil buu kugula noqonay ma arkaysa nacam waxaa kasii daran xaqiiqa oo la rabaa in la ogaado mujtamaca dadka aan ku arkeyno ee caruurta iyo dadka waaweyn waxay ka yimaadeen guri nacam marka gurigaas haddii ay joogaan dad akhlaaqdooda sidaas tahay oo bakhaylaya wax walba waxay noqonayaan mujtamacii inay ku noqdaan xaqiiqa cadaab iyo weyl inay ku noqdaan macnihi dhib inay ku noqdaan mujtamacii dhibaan ilmahaas baarak allah fiik sheekh cali waxaa runtii jirtay nebiga sal alla alay slam gabadh ayaa u timiday waxay ku tiri nebiga ilaahayow laba saxaabi midkood ii dooro nebigu wuxuu ku yihi labadaba iska da labadaba iska da maxaa dhacay markay tiri wuxuu yihi midina wuu gacan adag yahay oo wax ma bixiyo generous maaha arrintaad sheegaysa sakinimadii sheekh cali mid kalena wuxuu ku yidhi waa nin xanaaq badan oo gacantaa ka soo horeysa oo bud ushiisaa laalaada budku kula dhici waxaad raadsataa hebel baa maaragtay kaaga wanaagsan oo kaaga fiican labadaba maaragtay sakhina ah gacantiisuna ay saray qaadnayn hebel aad marka gabadhii nebiga taladiisii bay qaadatay wayna ku guulaysatay u yara fiirsada nebigu dad shisheeye ama sheegaynin gaalana ma sheegaynin wuxuu sheegayay saxaabadii la joogtay dhaqankoodii ayuu tilmaamayay waxaa meesha ku jirta oon cashar aan kala soo baxaynaa dagaalka iyo dilistu inayna fiicnayn kuwaan aan la joognana waxay dhahdaan abuse domestic abuse waad maqasheen in guriga haddii la isku dhex dagaalo guriga dhexdiisu uu burburayo oo nolol aynan ka jirin marka gacan qaadku islaamka dhexdiisa iyo diinkeenna kama banaano qofka gacanta qaadana hadda waxaaba la sheegayaaba gabdho iyaguna dagaalamo maaragtay raggooda iska daa gacana madaxa maaragtay ku dhifta marka kuwaana waan uga digaynaa waxaan leenahay dagaalkaasi ma fiicno gurigu waa baaba-aya haddii kale ugu dambeyntii sakhinimadu waa maaragtay arrin muhiim ah oo lagu doorto wiilka iyo gabadhaba lagu doorto oo lagu raaci karo oo wiilku gabadha uu ku dooran karo gabadhuna wiilka ay ku raaci karto sidaas oo kale waxaan sheekh cali usoo noqonayaa oon ku weydiinaya sheekh cali khayr allah ku siiyo khiyaarka doorashada wiilkii gabadh buu jeclaaday dhinaca kale sidoo kale gabadhana wiil baa u yimiday u cajabiyey labadii way isdoorteen laakiin labadani waxay ka kala yimaadeen laba qoys oo kala duwan laba family xulashada iyo doorashadu ma soo galaysaa labadii family in maxaan ku dhahday iyagana loo eego diintii iyo khuluqii intaba allah yubaarak fiika dabcan marka ugu horeyso horta marka wiilka uu gabadha doonaayo ama gabadha ee guurka gaarto ee wiil loo doonayo ama ay isbarteen ay rabto in lagu guuriyo waxaa jira waxaa la dhisayaa qoys waxaa la dhisayaa guri wayna dhib badan tahay xaqiiqa gurigaas waxaa loo dhisayaa oo loogu talagalay ujeedo nacam ilaahi subxaana wa tacaala markuu noo tilmaamay in uu bani aadamka markii uu abuuray uu u sameeyey qof la jaal ah ama maaragtay la dhiga ama isla noolaadaan ilaahi subxaana wa tacaala sababa ayuu raaciyey qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay bacda acuudu billahi min ashaytaan rajiim ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نعم marka ujeedadii loo sameeyey guurka waxaa ka mid a in lagu dego oo wanaag iyo isjacayl iyo raxmad ay ka dhalato waxaa ka mid a marka la isdooranayo waxaa ka mid a wax yar shacali adoo raalli ah waxaa telefoonka noo bilaawday maa sha allah السلام عليكم ورحمة الله فايزة بريستول ولا سو دwow السلام عليكم walaal waa dhowahay waa mahadsantahay بارك الله فيك wax hadda
barnaamijkoodu dhaafay. نعم السلام عليكم شيخ أحمد جوهر. نعم فايسة واكم الله ولا شيء بارك الله فيك السلام يا مالكي بقى بس هو إنما دي كسرتي. ما يتوس بعد سو جذبتي وأنيجي يشق علي بدنا لها الليسا عالم كودنا ويكون مقليان سو جذب بمركا مسج بارك الله فيك. حط عيني جمال سهرين الحمد لله. ما شاء الله. تلفونك وسهرين وأنا فرح سنة هاي. بارك الله فيك. مركان الكياد بنوكو فرحي. ما شاء الله. مركان كأركي وان كوكو فرحي الحمد لله رب العالمين. حياك الله. أحمد جوهر بريستل بنوغي من جرتي لانتين بيزو هدن بيزور تسفي عمك وسلامة يا دي ولادك كلها فرديبا. جزاك الله خيرا ولا شيء. برنامج في عنا ورنود لورين إلهي نقال المريم. آمين آمين. ما هبين كستو فوق قلا أو بيسي ينكسو يدافع برنامجكو. همين كستو خميس تضوض فيتكي ayaan barnaamijkan furaha qoyska aan kaga hadalnaa qoyska marka doorashadii iyo sidii la isku dooranayay baan Faysa ka hadlaynay qoyskii loo dhisi lahaa intii dambe wada la socotaan u malaynaya intii dambe waan ila socday xoogaa intii hore u dhaafay jazakallahu khayr barakallahu fiik wax talaad nagu darayso aragti waan kula socday si fiican waayadi xasuusay iyo Djibouti Xuseen Mataan marka sheekhaasna salaaniga gaarsiiyay salaanina diga gaarsiisid baan jecelahay dhammaan wadadkii waa la kala baaday haye walaash maantiina dee waan soo salaamayaa haye Fays jazakallahu khayr ilaahay ku xafido Fays aad baad u mahadsantahay walaash barakallahu fiik شي علي waxaad ku jirtay ood maraysay wajacala baynakum mawaddatan wa rahma qoyskii waxaan ka hadlaynay labadii qoys ee maaragtay marka doorashada runtii marka la is dooranayo la is guursanayo way ku xiran tahay oo waxa ka guursanaysaa qoys naam marka labadii qoys way xididayaan oo waxay noqonayaan laba maaragtay ismaaragtay xiriir leh maadaama la iska guursaday marka waalidka runtii ama qoyska kale waa muhiim gabadha marka la doonayo ama wiilka ay ogaanaysa gabadha waa inay ogaataa meeshuu ka yimid naam oo khaasatan waxaa jiro macni sida nabiga cali samadaahi noo sheegay waxyaalaha lagu doorto gabadha waxaa ka mid ah diintu hormar nabiga cali samadaahi wuxuu waxa lagu doorto waxaa ka mid ah lixasabiha lixasabiha waxaa weeye qoyskeeda iyo aabbayaasheed sharafka iyo maaragtay si u dhoorsan yihiin marka runtii way fiican tahay waxaan dhici karto inkastoo laga hadli doono waxyaalaha burburka keenay inay ka mid tahay haddii laga boodo qoyska oo aan la ogaanin oo aan lala socodsiinin inay burburka keeni karto marka runtii waan qabaa in maaragtay ay ka mid tahay xulashada qoyska in la eego khaasatan Soomaalida way tiraahdaa markay ragga la hadlayaan waxay yiraahdaan wiilkaaga aad dhali doontid ama ilmaha dhali doonto wuxuu ku baahan yahay habeenka aad hooyadiis raadinaysid marka waxa loola jeedaa marka raadinaysid waa inaad iska taqaanid qoftaan iyo meesha ka timid gabadhana sidoo kale waa in laga yaqaana ama ay taqaanaa wiilkan iyo meeshuu ka yimid صح وجزاك الله خير شيخ علي waxayna soo galay telefoon kale السلام عليكم شكري soo dhaw walaal وعليكم السلام ورحمة الله شيخ بارك الله فيك ولا شيء maxaad nagu dari lahayd khayr Allah ku siiyo walaalo wax insha Allah inaan laba eray kaga qayb galo faraha qoyska ma sha Allah fadal marka waxaan rabaa inaan fariin faro hooyooyinka haye anigu hooyaan hay wiil iyo gabadh baan haystaa ma sha Allah marka waxaan rabay in si isku maaragtay si simila hablaha iyo nimada loo tarbiyeeyo si siman yaana si siman way hadiya jeeraan Soomaalidu waxay xoog saaraan hablaha waan gartay reerkina inan kaliya ma dhaqaysa hadhow berrito laba qof ay soo imanaya waa sidaas winantii waxa la leeyahay hal kari fiiq inankana ina u shaqaynaysa habeen iyo maalin walaalka ma ka wadaysay walaalka ma siisay ma u dhigtay baa la leeyahay dabta inan uu berrito wuxuu la tagayaa inan reereed buu dhibkuu la tagayaa waan gartay inantaa reereedna ma wada ka fargarayn karto oo waxa weeyaan hadhowta marka caruur timaado hawshu way badanaysaa dhibku wuu badanayaa waa sidaas marka waxa wanaagsan hooyooyinku inay inanta iyo inankaba wada tababaraan oo inanku wax karin yaqaan wax fiiq yaqaan wax mayl yaqaan oo berita loo sheegay in hawl xulsi ay ka dambayso future hadii Ilaahay yiraahdo oo laga sinaado xaqi tababarka way rageen waxa lu gooyay waxa weeyaan maanta markay qurba yimaadeen ee dhulkoodii ka yimaadeen loogu shaqeynay waxba way qabsan kari waayeen gaajo u dhintay waxba ma karsan garanayaan gabadhii ay gursideen dib uun bay u soo kordhiyeen
oo mahayeen iyo maaliyada dhirigii saaran oo wax karinaysa waxay badan ay ka furan ma jirto shukri aad baad umahadsan tahay aad baan kaaga mahad celinayaa tala aad u qiimo badan ayaad soo gudbisay aan rajaynayana in ummadda oo dhan ay ku maqlayeen waxaanan runtii kugu raacsanahay in ilmaha wiilasha iyo gabdhahaba la wada baro sidii loogu noolaan lahaa dhulkan aan joogno iyo dabcan aan odhan karaba dhulkii inkasta oo dhaqan kala duwan uu jiro dhulkiina si looga dhaqmi jiray halkanna aan u baahannahay sidii loogu dhaqmi lahaa in aan fahamno aniga laftigayga waan arkay in gabdhaha uun xoogga la saaro wiilashana xoogaa loo fudaydiyey si markaad u fiiriso xoog badan aan la saarin laakiin waxaan runtii kugu raacsanahay walaashay shukri khayr allaha ku siiyo wiilasha iyo gabdhahaba in si siman wax loo baro waa talo wanaagsan sheekh cali inta dambe kulley walaashay waan ka noqonayaa umu maxamed soo dhowo walaashay salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدوه ولا رهي وإذن مغلا بارك الله فيك جزاك الله خير هرت برنامج حكوا ولا تخال لسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين مغشان صنع ها سفي عمان كو مقال ولا له أم محمد أنا وإذن مغلا إن شاء الله بارك الله فيكم وإذن سلامي إلهي أكو السلام سلام كبعدي أرنتا وأرن هذه أدنى وصوال بروف كريب كتشوكتي مركا واحد ويدين له هرت سؤال أيه سؤال waxay yiraahdaan qofkii dhib haysto waxay yiraahdaan ceelo ma qodna maxay cidina ma maqna cidina ma maqna guurka kii hore waa la soo dhaafay dhib badan waa lagala kulmay dheefna wuxuu kale waa laga helay anuu kale in la dareesay ma qaani guurkeennii hore burbur badan iyo khasaaro badan aan Soomaaliyeed ka faa'iidnay oo dadku markay isguursadaan waxa ugu muhiimsan oo ay mataqaana soo saaraan ama dhaxlaan awlaad tahay awlaadina dayac iyo xabsiye iyo mooryaanimo iyo jaad cun iyo duurgal ay wada noqdeen ayadoo mas'uuliyadaas dadka qaarkood mas'uulka ahaayeen xooggeeda waan ugu aaminsan in tarbiyad xumo iyo dayac iyo ihmaal badan la sameeyay isku turtuur waxaan la yaaban waxa kamid ah qofka Soomaaliga markuu hadlay daa'iman waxa leedahay hooyada carruurta tarbiyayso hooyada sahayeesho hooyada waxa awdagii وضع يا مسؤولية هذا سؤال سبحانه وتعالى مركب بين هذا برمده إني جاعل في الأرض خليفة رجع الصومال خليفة لماذا الله تلقى الحقيقي أنا هو الصومالات بان هاي الحمد لله رب العالمين أسربت بدر وانما وضع أو يلف ليها ننفي عن أرض قرصانة إذا قبه من ما صفرين لكن بينك أنت ليه معي ومده ومضي يدخل عاي يعني وحنا كلام تعلان لها هنا علماء الصوماليات waxyaalo badan oo run aad ka leexleexataa inaad dadku u bayaanisaan ay ka mid tahay horta gabar Soomaaliyeed ama gabar Muslim nin gaal ma guursan kartaa jawaabteeda miiskana dadku u saartaan daa'iman sababta waxaan aragnay gabdhaha Soomaaliyeed Korean Chinese American Jamaican ya Indian Yahuud Nasara Buddhist cid kasta u galeen waxayna ugu galeen raggoodii waayay raggooda baabay tii sharaf loo ifal cid guursanay Soomaali tii kan la duurka gashay hoosna waa horta dad runta u sheeg ragli mobiilish Soomaaliyeed xabadii jaad baqaystay shaabnimo gabdhaha guursanay gabadha fiican ee gabdhaha guursanay waa garanay ya gabdhaha magacyo idin bidumarkuna magacyo idin bixiyeen ogaad hay ya sii horday daaciban daawan fidanaya meeting baan leh waxaa la randaadaya toban cunuga naawrna guriga ku xiran waxaan hada runtaan la isku sheego ma garatay dib badan yahay sida isku dhaam jazaaki allahu khayran umu maxamed waxaan aad u filayaa runtii in aabayaal badan iyo hooyooyin badan inay ku maqleen oo iyaguna ilmo haysta guryana ka soo jeeda runtii adigana gurigaaga allaha xafido inta kale ee guryo Soomaaliyeed ku jirtana iyo guryo islaamba ilaahay xafido intaan islaamka haysanna islaamka allaha gaarsiiyo runtii waxaan ka taxafudayaa hadallada walaalaha nagala qayb qaadanayaan haddii uu ekaado hadal qalooca ama xoogaa canaan ah ama dadka qaarkood ay u fasirtaan meelka dhac inuu yahay ma u malaynayo qof Soomaaliyeed oo wanaag rabay in uu wax sheego wanaag in uu xalaynayo laakiin waxaan rajaynayaa in wanaag iyo fiicni loo qasdayo runtii waan ku soo noqon doonaa umu maxamed waxay soo galay cabdirasaaq london salaamu calaykum cabdirasaaq وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawo walaalkay baaraka allahu fiikum
aabihii horreeyey naga soo qayb galaataan u malaynaya bal maxaad nagu dari lahayd caaw maamooyinka waa soo hadleen si fiican والله عليك ونيو وحكت بدأن إلهي مالكتي قرية سياسة أد مالك وسوي جنسان أفرح قيسك وأنا واحد مهم أو إسلام مدن كوين jazaak allah khayr akhi ذات اللبات كل واحد دايت أسف عن أو جنسين أيضا سكت له ولا إيه محل إلى هذا بقي كنكا يعني خلنا ماذا إلهي سبحانه وتعالى أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وشيء حديث بدن إذا كسر وشكتين وإله إلى كل هي الله سبحانه وتعالى وخير لأنفسكم من سورة التغابن ومن يوغى شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى وعلى أساس عدينا بقي لماذا إن قفك لقفه بقي لماذا يعني إله سبحانه وتعالى قدر يكون أفلحي صح. الله لا يحب كل مختار الفخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الله سبحانه وتعالى واتو ثلاث آيات كله كلها هي آيات بدن قرآن كجرا nacam marka wallahi niyo kulay basaasna waa idinku dari lahaa inta hadda aad ka wada hadlaysaan aad iyo aad ayaan dhegeysanaya barakallahu fiik. waana qeyrna allah idinku siiyo waana ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol sallallahu ala sayidina Allahu muhammad subhanahu wa ta'ala. xayaak allah ilaahay ha ku barakeeyo cabdirasaaq adig iyo gurigaagaba insha allah insha allahu tacaala aad baad umahadsantihiin walaalaha nagala soo qeyb qaatay waxaan soo gaarnay barnaamijka gabagabadiisii insha allahu tacaala maamooyinku waxay soo tilmaameen runtii arrin ku saabsan tarbiyada diyaarinta wiilka iyo gabadha waa lasoo sheegay waxaa sida oo kale umu maxamed ay soo tilmaantay aabayaashu dowrkoodii inay iyaguna ka qeyb qaataan dabcan aniga ma odhanayo dabcan ma jiraan aabayaal waa jiraan waa joogaan qaar badan oo fiican oo wanaagsan ayaa buuxa waxaad moodaa inta badan inaan inagu balwarayno oo maaragtay la gudbiyo inta negatifeka ah mana diidayno negatifeka qaarkii wuu jiraa waxaan aad u codsan lahayn insha allahu tacaala in la isku tokeeyo walaalaha soo hadlay iyo inta janis u heli weyda inay soo galaan iyaga waxaan ka codsan lahayn sida oo kale in messageka ay hayaan dabcan intii la maqlay waa la maqlay caalamka u gaadhay jaarkooda iyo inta ka dhowna inay u gudbiyaan inta sidaas oo kale aad baan idiga mahad celinaya sheekh cali waqtiga gabagabadiisaan soo gaarnay طبعا waxaa jirtay qayb saddexaad aan iri waan sheegaynaa kulay barnaamijyada baan ku sheegi doonaa insha allah aan moodo inuu yahay qaybta muhiimka maxaa yeelay dhaqankeenii iyo islaamkii anagoo haysano wadamada marka la yimid caruur baa lagu dhalay way ku barbaareen guur bay gaareen qaar way guursadeen qaar kale hadday soo socdaan marka waxaan isleeyahay arrinta muhiimka ah oo la rabo inaan xoogga saarno waxay wadamadan aan joogno ee qurbaha nacam sida caruurta ma arkaysa loogu sameyn lahaa wax la yidhaahdo fursad oo markaa guurka loogu fududeyn lahaa looga qayb qaadan lahaa maxaa yeelay dhalinyarada waxaa arkaysaa gabdho iyo wiilalba qaarkood in ay guurka u arkayaan amaba aan idhaahda inay haystaan wax la yidhaahdo tawaqucaad ama expectation yes macnaa inay wax maaragtay ay filayaan qofka ay guursanayaan waxay ka heli lahaayeen way haystaan liis dheer ay wataan nacam wiilkana liis buu wataa gabadhana liis bay wadataa. wadataa marka waxyaalaha hadda walaasha ay sheegaysa oo imanaya waxaa weye waa laysku dhacaya marka jazaak allah khayr sheekh Insha Allah, cali sheekh cali arrintaas- halkaasaan kugu joojiyay intaas intaana talada u dambaysa aan ku weydiinay maadaama waqtigii uu hayo waxaan walaalaha ugu bishaaraynaynaa in hameenka dambe khamiista dambe barnaamijkan aan sii wadayno waxaad moodaa sidii soomaalidu oran jireen faaloone fari kama qodna weli inaanaan gaadhin meeshii aan u soconay doorashada xulashada iyo doorashada sheekh cali kelmadii ugu dambeysay dardaaran ah dabcan xalaqadu waa sii socon doontaa hameenka dambe aan Insha kusoo laami doonaa si aan u dhammaystirno insha allah kolley waxaan inta laga oranayay- gaarayo inta insha allah kolley waxaan oranayay hadalkeena marka horena waa sheegnay wuxuu ku socdaa waalidiinta iyo dhalinyarada gaartay guurka nacam marka waxaa loo baahan yahay inay jiraan qoysaska iyo ma arkaysa masaajidada ama maraakista islaamiga ah Mhm. iyo mujtamaca soomaaliyeed in ay ka wada qayb qaataan oo sidaan oo kale inta looga wada hadlo si hoosana xaafadaha iyo magaalooyinka loogu dego oo markaa runtii arrin ijtimaaci ah oo bulsho oo adag weeye in laga wada qayb qaato marka qoyska keliya kuma filna waxay u baahan sax tahay wey ma arkaysaa cid ka siisa talo iyo saas oo kale marka insha allah waan sheekh cali jazaak allah diyaar khayr waan- aad waan- baad umahadsan tahay waxaan walaalaha u sheegayaa mar kale insha allahu tacaala in usbuuca dambe aan arintan sii wadi doono khamiista soo socda hadduu eeba idmo sidii umu maxamed ay sheegaysay laftigeedu waa arrintan uu hadda sheekh cali uu sheegay gabdhaheenni iyo wiilasheenni waxay u baahan yihiin talo wanaagsan talooyinkaana
jihooyin ka qayb qaadan kara oo wax fiican ka gudbin kara ayaa jira si aynan gabdhaheenu soomaaliyeed aynan u aadin meelo kale. laakiin mararka qaarkood waxaa dhici karta in lagu qabsado khiyaarkii ayaad xidhxidhay. ayadana waxaan ka jawaabaynaa su-aalayna weydiisay, haddii waa la yidhahdo waqti waxaan u samaynaynaa fatwada loogu talagalay qoyska oo culimmadii fatwada bixinaysay aan soo sheegi doono insha allahu tacaala biidni illahi alkariim, oon idiin ballaminayno si wax alla wixii su-aal ku saabsan mashaakilaadka qoyska ka jira jaanibka diiniga ee fiqiga ah in aad soo weydiisaan. gabadha ma guursan kartaa nin kale oo ajanabi kale ah? waa su-aalaha ka mid a, laakiin shardiga diinta iyo gaalnimada waa mid u baahan in la caddeeyo arrintaas. runtii in ay caddahay gabadhu nin gaala ma guursan kartaa mise ma guursan karto. way ka duwan tahay qof caddaan ah oo muslim ah oo la yaqaano muslimnimadiisa iyo mid kale way ka duwan tahay. marka waxaan odhan lahaa insha allahu tacaala intaan dib isku arki doono u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa amaanada ilaahay subxaanahu wa tacaala. nastawdicukum allahu aladii laa tadiicu wadaa'icuh. waxaan idin leenahay waxaad wax alla wixii aragti aad qabtiin ee talo ah ama aragti ah kusoo qoray insha allahu tacaala emailka shaashada ka muuqda eed arkaysiin noo soo gudbiya. habeenka dambe markaan aragno warkiina insha allahu tacaala intii aan ka gaari karno waan soo qaadayna waan soo bandhigaynaa biidni illahi alkariim. waxaan aada u jeclaan lahaa inaan isla soconno oo aan meesha aan hiigsanayno ee ah in aan wada dhisno oon ilaalino oon kobcino oon keergarayno guryaheena insha allahu tacaala. wajazaakum allahu khayran. waa anigoo axmed jawhara oo idin leh salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh aynamaa kuntum.